mujtamaca khaariq lilcaada wuxuu ku yahay buu leeyahay usluubka uu qoran iyo balaaqadiisa iyo waxyaabaha qaybka uu ka warramayo casr ama waqtiyada ka mid bini aadamka ma soo maro ilaa waxyaabihii quraanku uu ka warramayo wax ka mid ah ayaa waqtigaasi cadaada oo muujinaya calaa sixati dacwa in waxa uu nabigu sheegay nabinimada inay sax ahay si awgeed buu leeyahay quraanka nafcigiisu uu anfacay kuwa jooga kuwa maqan kuwa iman doona cid walba ilaahay waa ku anfacay ilaahayna quraanka wuxuu ku leeyahay in huwa illa dhikru lil alamin wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin in huwa illa dhikrun lil alamin ilaahay wuxuu leeyahay quraanku wuxuu hanuun iyo waana u yahay basharka dhamaantii caalamka dhamaantii لكن إلهي وحكله كله عشري وقرآن كسود دقي وحلا ليه ولا تعلمن نبأه بعد حين قرآن كوركي سوحا قرندون تنبأ ليه سبحانه وتعالى بعد حين مدة كذب مدة وفرنتي سادردد بمفسرين توحي ليه وأمر كسود دقي إلا يوحي كدم بيوا بعد حين كي سوق ليه ابن جرير الطبري هي مركو أقواش الشيخ وحورية في تفسير الحين الذي ذكرته الآية وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال أن الله أعلم المشركين بهذا القرآن أنهم يعلمون نبأه بعد حين من غير حد منه لذلك الحين بحد ولا حد عند العرب للحين ولا يجاوز ولا يقصر عنه لا يجاوز ولا يقصر عنه فإذا كان ذلك كذلك فلا قول فيه أصح من أن يطلق إلهي وحلي ولا تعلمن نبأه بعد حين قرآن كان وركي سوحا قران دونتان وقت كدب إلهي سبحانه وتعالى وحكى له إلهي قرآن كتل المامية ولكل نبأ مستقر وركستابا وقت إيمالو كحسل بوليه وحكستو قرآن كور رمي وقت إيمال وكحسل يوليه وسوف تعلمون بإلهي سبحانه وتعالى وسوف تعلمون مرضا بيان ايدن قران دونتان بقى لله سبحانه وتعالى ما دام عين كاسيتا هاي قرآنك كان إلهي سبحانه وتعالى وحكا قوار رمي واحد تربضا أقون تربضا أقون تاسوكو سابسا مد عركا مد لولكا قرآنك هي السنة دبا أقون تربضا القرآن كور رمي با وحا أي موقتي في عصر الاكتشافات وقتها كان بني آدم كأقون تسوي هرم مرتي وح بدن وقادي ما ندعي كرته شيء حقيقة علمية هي إنه خلافه حقيقة علمية أو شيء كتابك يا سنة وهي إلهي بأوحلا يقول أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض إلهي ما وحا وقور رمي سانباء لله سبحانه وتعالى وحانو كوغين عركي يرلك ما ندعي كرتو ورانا لي الرسول كيسو كوغين عركي يرلك إنه ساينتيفيكالي لبروف كريا وغير معقول ووحان معقول هاي إلهي وحي وشاقي أيوم بعد دبا سيدا وقيد با إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحوينوت المامية waxyaabo badan buu ka warramayaa oo aqoon basharku uu maanta uun wax ka ogaaday casrigan aynu joognana bashariyadu in badan oo ka mid ah waxa isla aqbashay masaa'ilka cilmiga ah ee tajriibiga ah ee mushaahadada ku salaysan erayada si ma layla garta science-ka waxa la yiraahdaa احنا وثيوريس اركتيو تحليلات انت اللي سميه استنتاج لو فيلايو 70% انay correct noqoto shayga haduu boqolkiiba 7 theory la yiraahdo waa correct waa maqbuul عند العلماء scientifically waa proved bal iska yiraahdaa walow 30% of it oo yahay wax madow aan la arki karayna ama saxayn laakiin shayga hadii scientifical proofkiisu marka laabka la geeyo la wadwaday 70% lagu kalsoonaado inuu waxan sida u soconayo dawaa'ir ilmi agtooda waa maqbuul meelaha cilmiga agtooda waa maqbuul laakiin aqoonta waxa kamid ah wax isaga la arko
aqoomaha nooca kana ee laabka gala ee dariiqa loo raaca leh waxa ay ku salaysayiin intooda badan wax uu basharku aqbalo iyadoo aan loo eegin cidda tidhi yani waxyaabahan jaamacaadkii ama scienceska maanta la sheega waa laba qaybood qayb wuxuu yeeshaa suuradda ama hadhka ninku waxa uu rumaysan yahay ama gabadha waxay rumaysan qofku wuxuu rumaysan yahay mahma lagu yidhaahdo waa shay cilmi iyo khubaraa sheegtay haddana wuxuu leeyahay suuraddii qofka kan oo ah mabaadi'dii uu rumaysnaabaa ka dhex muuqata maalan ninka laftiiska ah shuuci ama shuuci xigeen kaag dhow kuwa bidixda yidhaahdaan ninka ah markuu dhaqaalaha ka warramayo dhaqaalahaasi wuxuu yeelanayaa maxay khabiir dhaqaalaha aado laakiin dhaqaalahani wuxuu leeyahay suurad ninkan maskaxdiisa ku jirto ah maxay suuradda laftiiska waa dhaqaalihii qolada bidixdu qaabkay uga warrami jireen ama u qaabayn jireen xagga kale cagsigeeda markuu yahay ninka kapitaliska ama midigta ahi ee dhaqaale ka warramaya ama politics ka warramaya ama qofku waxa uu rumaysan yahay ma dhaafo laakiin waxa laabka gala ee more scientific ahi ma kala laha qofku wuxuu rumaysan yahay kuma xidhna maalan xisaabta miyaa ku aragteen wax la yidhahdo waa laftiiska sidaa leh iyo bidixda caynkan qabta iyo midigta caynkan qaba iyo culimmada yahuudda sidaa qabta iyo kuwa muslimka caynkan ka yidhi waay maxay u yeelan weyda yani waa figaris aan aqbali karin caqaa'id kale tajribo laabka ka soo baxday lama yidhaahdo tajribadan buudiis baa ka dambeeyey waa isku mid hadduu buudiis ka dambeeyey iyo hadduu yahuudi ka dambeeyey hadduu kristan ka dambeeyey hadduu muslim ka dambeeyey scientifically isku sibay u soo baxaysaa laakiin human scienceska iyo wax la mida taariikhda bolosiga dhaqaalaha artka waxa hadduu yahay cidduu ka timi sawirkeedii buu wadataa taas iyadu layskuma diidana idan bashariyadu maanta qayb bay ogoshay inuu cilmi xiyaadiya yahay qaybna ma ogola qayb bay ogoshay inuu cilmi xiyaadiya yahay oo waa qaybtaasi laboratoryga intay gasho la arko ee taxta tajriba hoos timaada qaybtaasi bini aadamku wuxuu aqbalay inay xakam noqon karto inay wax dadka u dhaxeeyato waxna lagu buruuf garayn karo waxna lagu disburuuf garayn karo waxna lagu cadeyn karo waxna lagu dumin karo ayaa casriga kan la aqbalay quraanku markaa nabi muhammad ku soo degay salawaatullaahi wa salaamu alayhi 14 qarni ka hor ayaa waxa uu qorayaa masaa'il basharku dhawaan uu ogaaday kadib laabkan iyo mijharkan ama microscope-da tan iyo qalabkan wax lagu baadho scientifically markay koreen wax hadda la gartay ayuu quraanku wuxuu ka warramayaa